arday waxbarashada inta diiday oo la hayn waayay la yiraahdo meeshan ha lagu hayo oo inaan xabis ku hayno xoogaa lacagana kaga shaqaysano kumaana talgelin anagu taa waa isku dhibaatoonaynaa waxaan rabnaa qof iskii waxbarashada u raba oo diyaar u ah inuu meel wax gaaray annaga aan naga dhowrayn inaan ka wardiinay irdi uu ka baxo ama uu cararo laakiin waxbarashadiisa iyo akhlaaqdiisa kale aanu qaabilsanahay taas waa mid oo ardayda magaalada waxa laga yaabaa markii la soo xabiso inay carar iyo tagid keenaan saasaanu ardayda baadiyaha u dooranay waxaan kale u dooranay ardayga baadiyaha ka yimid markuu yar yahay waa qof weyn 10 jirkiisu dharkiisa dhaqashadiisa ku filan yahay waa qof ismaamulaya weeye ardayga magaalada waxa laga yaabaa laakiin 10 jir dharka in loo dhaqo marada dhaqaha dil yara oo ka saari bay wasakhdii ardayda marka baadiyaha sidaas aan ku dooranay meesha wax ku bartaan waa kiro meesha ay seexdaan waa kiro dad baa u shaqeeya shaqaalaha cunada u kariya macallimiin baa wax u dhigta intaas badad isxilqaamay ayaa sameeya magaca Cabdiwaaxid Saciid Maxamuud Cabdiwaaxid ka timid Seemada magaalada Seemada laga keenay waxay 30 kiiloomitir u jirtaa magaalada Jariiban Cabdiwaaxid baa ka yimid oo kamid ah ardayda macadkan dhigata Seemada baa laga keenay halkan lagu keenay ka waran meeshan meesha waxbarasho lagu bartaa meel fiican waaye waxa ka barataa هي مركا حاجة حد وحمر يسوي برشة. قرآن كوامر يا والسماء ذات البروج ما مريسا. مركا كور وحبرشة هذا يعنى هذا يشيف كايمش أنا كويس استكور. برشة وكفر حسنا ما شاء الله. أيه. موبيل ما استعماشه. ما لقوا أقول يا حرنت موبيل. معلمين تما أقول صومع. كور موبيل أنت موبيل كسي محاول حياة. مرة موبيل. ما وربت. إن هو اللي دين سمي مكفر أحسنتي. والدين سمين دونا إن شاء الله تعالى قرئ الليذين وحكو برتان إذن كن أدو وحكو برتان بالدين سمين إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحنا أكسل. ساك وحن كسوغان هاي حرونتنا أركيسان آدكو قروح بدن وحن دوركي تاغن وبح صوماليات وبح ددك إسلام كا أصو بحية معهد قيمة بدن oo laga furay magaalada Jariiban ayaa saaka ku sugannahay ardadan arkaysaan waxa laga keenay meelo kala duwan oo miyiga ah bay u badan yihiin cunug walba reer miyiga jira ayaa keenay waxaana la keenay Jariiban macadkan oo loo furay ayaana waxa lagu siiyaa lagu baraa duruusta diinta islaamka marka maanta waan soo booqanay iyo raadi magaca maxaa barataa quraanka barataa ma hadda lagu bilaabo ما شاء الله ما شاء الله حاجة مريسا حمزة يا حمزة ألف كم مريسا ماي إيه ما شاء الله ما شاء الله أنت هذا ما شو شوكت هذا هو بالبات شوكت ما شاء الله ما شاء أو نكان خيار كاسره مقعة كورن سكول كورن ماشي أنا حكي برتد كورن سفيعان بحوجة برتا مركا ماشى مسيحتها هل كان مسيحتها عنا ذكور عنا في عمل وسياسة ما شاء الله ما شاء الله وحا أركيسان وأرضي معهد كان وحا فري شيخ درر وحنا سوى كلام معلن معلن أمين أرضي ماشى نكسر ما أنت أركيسان وحا لو أساسي سيسكا حقوق بصاء شخصي كستنا وحا ولبحها المهاس wixii uu cuni lahaa isxilqaamay baa hawshan aabulay hay'adta kuleysay iyo dawladda kuleysay midna ma jiraan wax waalidka laga qaaday iyo waxyaabo lagu kabay baa cunadooda iyo chiefkooda intaba loogu dabaraa sidoo kale hadda waxa ay ku sugayeen ama joogaan waa guri kira ah oo dad leeyahay ay degan yihiin meesha wax ku bartaan waa kiro meesha ay seexdaan waa kiro dad baa u shaqeeya shaqaalaha cunada u kariya macallimiin baa wax u dhigta intaas badad isxilqaamay ayaa sameeya anigu marka waxaan boorinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba haddaana marka hore gacan ka geysan raashinkooda cunadooda isu keenidooda inaan hadda gacan ka geysan doono ardadan quruxda badan inay helaan hoy iyagu ay leeyihiin u gaar insha Allah taala markaasna waxay ahaan doontaa markii ay noo soo bandhigaan maamulka macadkan insha Allah aan u diyaar garowno haddana haddii aan qayb ka qaadanayno sidoo kale diyaar bayno yihiin in nagala qayb qaataan aad iyo aad bay u mahadsan yahay quraanka waxa ka maraysaa xaga maraysaa quraanka عمر يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب يا وهي أذيقنا القارعة مرسا وها آخر سورة إذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما شاء الله ما شاء الله. عبد الواحد سعيد محمود. عبد الواحد حاجة تمد سامر magaalada Seemada laga keenay. Waxay Seemada waxay 30 kiiloomitir u jirtaa magaalada Jariiban. Cabdiwaxid baa ka yimid oo kamid ah ardada macadkan dhigata. Seemada baa laga keenay halkan lagu keenay ka waran meeshan. meesha waxbarasho lagu bartaa meel fiican waaye. Waxa ka barataa. Hay marka xagee hadda wax maraysa waxbarashada. Quraanka waxaan marayaa Samaa'idaat al-Buruj ma maraysa. Marka ka war waxbarashadaada iyo cunadaada iyo chiefkaaga meeshan ku haysatay ka war. Waxbarashadii waa ku faraxsanaa ma sha Allah. Hay mobile ma isticmaashaa. Ma laga ogol yahay xarunta mobilada. Macallimiinta ma ogola Soomaa. Ka war mobile aanta iyo mobilka see maxaa u dhaxeeya. Mobile ma warabtid ardada kullu eeg maxaa leedahay wax u sheegaysaa si wax u bartaan. mobile qaadanin wax. maskaxda tirtiraa. ما شاء الله ما شاء الله كبركي. سو هذا ملك الخياري وحنا لتشوغا الشيخ أحمد عبد القادر أو يوسف محاد شامع أو معمولها مدرسة أما مؤلف كأما نكي فكري إن ضد كان ماشي أرضان لسوق يعني الشيخ مركو رسول هو مركل بعد بل فكر كماشان إيو أساس كذي وحي رور بحنا نقصي. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فرحان ودوه هاي أنا وسود وانا سا وأنا كم أصلا تصبح هذا أساسك ماشان وحو بلوضي سنة هجري بيش شوال اللي يراها أما صنفر له يقانا طبعا كذي سنة يكون أفر بقول أفرتني أفر يعني صور دافني ميلادي كان واحد كجا أدنيت كودا مي أما بيش شناد لبكون يا لباتني صدح سيدا صوحي كفرونتها بيش سجالات هذا لحية هذا فرد هذا سجال بلاد بفرونتها هاي fikradda furidoodu waxay ku timid muddo badan baa waxaan ku soo jirnay in aan wax baranayno markaan waxbarashada meel ka gaarnay aanu wixii aan soo baranay dadka sii barno waxa kalifay in aanu xarayn fikirna marka sanado badan oo aan soo haynay waxbarasho dad aan xaraysnayn baa waxa imaan weeday natiijadii sidii aan u hididiranay u imaan weeday sababtoo ah waxa hadda badan saameynta khaarijiga oo banaanka uga imaanaysa ardayga inta halkan uu ka baranayo oo kaloo ka saamay badan laga yaabo wuxuu ka baranayaa suuqa wuxuu ka baranayaa mobilka wuxuu ka baranayaa saaxiibadiisa oo ka leexinaya wadadiisa mustaqbalka wanaagsanayd arday marka dhowrsoon oo waxyaabaha saameynta ka dhowrsoon oo u dhaxeeya waxbarashadoodii nasashadoodii iyo nashaadkoodii inta u dhaxeeya si loo helo baanu fikirnay inaanu sameeyno meel ay ardaydaas ku soo xaroodaan xarunta waanu furnay waxaan dooranay marka ardaydaas inay noqoto ardayda baadiye laga keeno miyiga sababta aan u dooranayna waxay ahayd laba arrimood waa mid kumaana talagelin sida kuleejada lagu yaqaano arday waxbarashada inta diiday oo la hayn waayay la yiraahdo meeshan ha lagu hayo oo inaanu xabis ku hayno xoogaa lacagana kaga shaqaysano kumaana talagelin anagu taa waa isku dhibaatoonaynaa waxaan rabnaa qof iskii waxbarashada u raba oo diyaar u ah inuu meel wax gaaray annaga aan naga dhowrayn inaan ka wardiinay irdi uu ka baxo ama uu cararo laakiin waxbarashadiisa iyo akhlaaqdiisa kale aanu qaabilsanahay taas waa mid oo ardayda magaalada waxa laga yaabaa markii la soo xabiso inay carar iyo tagid keenaan saasaanu ardayda baadiyaha u dooranay waxaan kale u dooranay ardayga baadiyaha ka yimid markuu yar yahay waa qof weyn 10 jirkiisu dharkiisa dhaqashadiisa ku filan yahay waa qof ismaamulaya weeye ardayga magaalada waxa laga yaabaa laakiin 10 jir dharka in loo dhaqo marada dhaqaha hadii la yiraahdo oo ka saari bay wasakhdii ardayda marka baadiyaha sidaasaan ku dooranay midda kale wax horay u saameeyay oo qalbigooda ma aragtay uu jeclaaday ama inay kubada daawadaan ama waqti walba kubada iska dheelaan ama mobile fiirsadaan wax ay u ordayaan saameeyay ma jiraan baadiyu joogay cidis u shaqeynayay waxbarashada lagu geenay waa ku farxaya waa imaanaya niyadiis waxa u soo jeedaa waxbarashada sidaasaan ku dooranay ardayna halkaas ka yimaadeen sheekh waa maasantahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kelmado gaaban ardadan meeshan aad ku soo xareysaan chiefkooda iyo cunadooda dabcan waa meesha waa la xareeyay chiefkooda iyo cunadooda xagee ka dabartaan chiefkooda iyo cunadooda runtii hadda waxaa dabara waalidkood oo baadiye ah waad garanaysaa kharshaad ku bixi kara arday afartameeya oo saddexda waqti sida xaafadaha wax looga cuno waxa uga cunaya
guryahay ku jiraan ay kira yihiin dadka wax u karinaya dad haddee u shaqaynaya ay yihiin dhinac walba kharash kaga socdo biyaha bishii intaasoo jeer loo soo shubayo korontadii ardadan maxaa hadda bartaan oo waxa bartaan maxay yihiin hadda waxay bartaan waxbarashada diiniga ah qur-aanka kariimka way xifdiyaan kuwa awal soo dhameeyo xifdiya kuwa hadda loo bilaabay kitaabaha cilmigana way akhristaan ninba heer buu ka joogaa waxbarashada maadigana waxaan rajaynaynaa insha allahu dhowaan markii qur-aanku isugu daba dhaco in loo bilaabo qorshaha noogu jidha laakiin weli uma bilaaban maasha allah waa qorshe fiican aad baa u mahadsan tahay sheekh dirir dabcan waxaad arkaysaan ardada meesha joogta iyo maaragtay mudiirkii madrasadan ama xaruntan ardadan quruxda badan ee diinta ilaahay baranaysa haddana isxilqaanka ah xitaa aan loo haynin wixii quutu daruuriga waalidkii miyi jooga ay bixinayaan hadday garab tahay hadday gaashaan tahay inaan la garab istaagno waxaa soo bixi doona ubax qurux badan diinta islaamka haysta dhaqanna wanaagsan leh iyaguna sidaas u faraxsan yihiin maanta farxadda ka muuqata iyo maasha allah ka war subaxii goorma soo kacdaa waa 4 aroornimo ayay soo kacaan ilmaha intaa la eg kuwa badan oo waa hurdaan xilligaas laakiin iyagu waxay soo kacaan 4 waa si qolaba siday u taqaan 4 habeenimo waa xilliga salaada subax inta la tukan ka hor marka maxaa sameeysan wadkan adkaar wala khiyaruurta adkaar baa la akhriyaa waa la tukadaa haye marka dugsiga aadna ka yidhi quraanka marka la bilaabay ma sha Allah waxaan leenahay anaguna aan ku dayno insha Allah aad baan u mahadsantahay sheekh dhamaantiina waxaan rajaynaynaa insha Allah diinta Allah idin fududeeyo waxbarashada Allah idin fududeeyo insha Allah ta'ala waxa heli doontaan gaashaan iyo garab baa la idin siin doonaa dadka jiriiban iyo ummadda Soomaaliyeedba hoy aad leedihiin baa la idin sameeynaya ma ku faraxsantihiin in hoy la idin sameeyo ma ku faraxsantihiin waa la idin sameyn doonaa insha Allah ta'ala guri aad leedihiin wax ku barataan idinkuna aad wax ku bartaan baa la idin sameeynaya insha Allah waayahay sheekh xagee laga dabaraa quutu daruuriga meeshan ka bixisaan jiifkii baa bixisaan guryo kiraa ku jirtaan korontadii biyihii waxaasoo dhan oo kharash xagee ka dabartaan runtii farxaan waa maasantahay su-aasha waa su-aal muhiim ah qof walba oo caqli lana wuu dareemayaa kharashka meesha ku bixi kara bishiiba intuu tare la egyahay kharashkaas waxaa hadda bixiya oo mas-uuliyaddiisu ay saaran tahay waalidka ardayda annaguna kumaanan talagelin inaanu meesha ay noqoto college ribxi ah oo lacag laga faa'iido ee waxaan ugu talagalnay waalidku hadba intuu soo awooday intuu soo bixiyo inaan isugu waxa la yidhaaho celcelinno oo ay markaa intoodaas ku noolaadaan alxamdulilah intoodaasana waasac u ah waalidku xoolo nool bay soo dhiibaan oo ardayda usbuucii dhinacaas hilibka bay sida uga kaalmeeyaan halkaasa marka hadda kharashkoodu saaran yahay oo waxooda la isugu celceliyaa markii wax kala go-an yihiin waay mid jooga waa garanaysaa wax ka kala go-aan bakhaarka iyo meelaha aan ku xiranahay deyntii nagu sii yeeshaan ayaguna waxba naguma cadaadiyaan sidaas ku socda hadda kharashkoodu waayahay aad iyo aad arrin u wanaagsan weeye intaasaan rabno inaan kusoo koobno akhyaari waayahay maantay waxaynu ku sugnayn machadka ka furan magaalada jariiban oo dabcan hadda la furay oo sheekh dirir mas-uul ka yahay dhalinyarada quruxda badanna ay dhigtaan saad arkaysaanba subaxii 4 subaxnimo ama 10 subaxnimo haba saa u taqaanid bay kacaan wardi bay akhriyaan quraankii bay salaadii bay tukadaan quraankii bay baranayaan waxa waa wixii diinta ilaahay lagu baranayay waa dadka la rabay inaan taakulayno garab istaagno dhiiri gelino waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhiiri gelin oo mudan tahay sheekh adigana aad baa u mahadsan tahay cid kastoo insha Allah ta'ala warkay u gaaran waxaan rajaynaynaa inay dhiiri gelin iyo garab istaag ay muujiyaan waxaan rajaynaynaa maanta maalinteeda kaleeto guryo ay leedihiin insha Allah ta'ala idinku aad leedihiin inaad maarta aan ku kulanno